waxaa xukuumadda Soomaaliland maanta si rasmi ah dhulka ula sintay isla markaana u baabisay dhammaan wixii dhismayaal ka jiray deegaanka Dogoble ee gobolkaasi Sanaag oo ay hore xukuumaddu uga soo saartay go'aamo lagu duminayo deegaankaas oo dhawaan dirir ku dhexmartay laba beelood oo wada degaa waxaana goobtaasi ku sugnaa wasiiradii xukuumadda u igmatay fulinta go'aamadaas oo uu hogaaminayo wasiiru dawlaha amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga iyo difaaca qaranka wasiiru dawlaha wasaaradda xanaanada xoolaha gudoomiyaha gobolka Sanaag saraakiisha kala duwan ee ciidamada qaranka iyo waliba labada dhinac ee deegaanada deegaankaas ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay wasiiru dawlaha amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga iyo difaaca qaranka iyo gudoomiyaha gobolka Sanaag oo dhamaantood sheegay sida hawlkarnimada leh ee ay xukuumaddu u fulisay go'aamadeeda ahaa adkeynta nabadgelyada iyo burburinta deegaankaas dagaaladu ka dhaceen waxaana yiraahdeen aad iyo aad bay u mahadsan yihiin dadweynaha reer Dogoble iyo guud ahaanba degmada Ceelafweyn si wanaagsan bay hawshaasi noogu qabsoontay si wanaagsan bay dadku ugu diyaar garoobeen habeenkii horeysay dhalaartii aanu khamiistii aanu tagnay habeennimadii caddadii bay hawsha ay bilaabeen ay looxaantoodii iyo jiingadahoogii iyo wixii u hoos yaalaba sii diyaarsadeen jimcihii way ka shaqaynayeen saaka waxaan ugu tagnay iyadoo hawshoodu waxoogii duuduubtay meel dhigtay dabeedna halkaasi cagafagaftii ku gasho si wanaagsan bay hawshaasi noogu soo dhammaatay maanta oo ay bishu tahay 15 bishii 10aad 2016 waxaanu joognaa deegaanka ee Dogoble oo ka tirsan deegaanka Durcaraale ee degmada Ceelafweyn 22 bishii sagaalaad xukuumaddu go'aamadii ay soo saartay mid kamid ah ayaa dhigayay in gebi ahaanba la dumiyo deegaanka Dogoble alxamdulillah rabbil caalamiin si nabadgelyo ayaa lagu dumiyay Britain waxa la dumin doonaa deegaanada isku kuf iyo bacaha oo kamid ah deegaamadii laga soo saaray ee go'aamada deegaanka Dogoble la dumiyay gebi ahaanba go'aanku wuxuu dhigay lama deegaameyn karo laga bilaabo taariikhdii maalinta deegaameynta waxa ku jirta laguma arkayo barkeed laguma arkayo sumad iyo raado magaalo wax u eeg taasaan la suuriyay taasaan la baabiyay dawladda arrimaha guduhu aad iyo aad baan runtii ugu mahad celinayaa sida sharafta leh ee qiimaha leh ee nabadeynta uu aad iyo aad ugu gudkaday farxad bay runtii noo tahay anigoo ah gudoomiyaha gobolka in aanu wasiirka runtii iyo wasiiradii hore ka horeeyay ee go'aamadii dhaxalgalka ah soo jeediyayba runtii gabagabadii iyo gunaanadkii iyo iskaba raacintii waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa oo bilad runtii sharaf oo ka qaatay shaqaaqadii ka dhacday Ceelafweyn iyo nawaacigeeda waxaan leeyahay mudane wasiir aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay geesta kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay salaadiinta cuqaasha iyo waxgaradka labadii dhinac ee deegaanada deegaankaas la burburiyay maanta isla markaana waxay sheegeen in ay ku faraxsan yihiin fulinta go'aamada xukuumaddu ka gaadhay deegaankaas sidoo kale waxay ku ammaaneen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland sida ay uga muuqatay waxqabadkiisu guud ahaan gobolada Soomaaliland gaar ahaan gobolada bariga Axmed Mursal TV Caalamo Universal Ceelafweyn